waxa weeye laascaana ayaan tagaynaa maantana fiidiyogan ayay iska soo duubeen dubahato raali noqo iyar baaribciyahan naga raagay saakana waa kan soo rucley nabadi lagu deeqeysadaatay midage dadkii kala lumay isdoondooniyo abwaanahay maxaa leedahay codsi baan u dirayaa daarood curadadiisii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بان إذين سلام يا ملك السؤال جوكتان يسي كستو عظيم مغليسان وحان مانت آد ugu faraxsanahay in ay garaadadii oo guuleystay oo guushoodii ku damaashaaday oo laabta isgelinaya ii doorna ay maanta Hargeysa wiil ay makarafoon lacag ku siiyeen ay ku leeyihiin ilaahay nabad la baryo nabad ma ahanade ii doorow nabadda aad maanta lacagta ku bixinaysaan muuse bixi wiilu adeer u yahay buu wuxuu ku siiyay lacag si uu makarafoon magaalada ula dhex wareego uu yiraahdo ilaahay oo garaadada iyo waxa weeye daraawiishta iyo waxa weeye hartida isdaba socda ilaahay oo hanno dul keenin makarafoon ayuu u soo dhiibay wuxuu ku yiri magaalada dhex wareeg عروض كسعودة حنا سوق قارسين أيجنا نبتة كذا دلقات دت كإسلام كان دجال كلاس عروض كسعودة وحن دون يا إنا نكتب عايزينه دت كنا نود عينه وإحنا إلهي ودجال كان نقشوشي إلهي ودجال كان نقشوشي garaadadiina maxay sameynayaan laabta isgelinayaan way maxaboonayaan madax baa la soo dhaweynaya sharaf iyo karaama socota qurux baa waxa way meel walba uga muuqata ayagiina kuwana god bay ku xiran yihiin كونا هرجيسي وحكي كعبادة يعني وحي إلهي ونجا قبو إلهي ونجا قبو إلهي ونجا قبو إلهي كان قبل ميو واي أذا قدرنا سيشلف له تضبط إشكولها وراد الجوريجي يجبح وراد الجوريجي يجبح ونادى روي الناس كل من والجوريجي يجبح تضبع الشو يكب ضب وحوي لجابري نبض عاد ما أنت هرجيسي ويلا شاد يركع طول هذا هاي إلهي ونجا قبو وحوي إذا وش نجا قبو مركو رمحات وقف فكري ويدا موسو wiilkan habar awal lacagta ku siinaysa shiikha aad ka dhigayso oo beenta ah ee asleedahay waxa weeye caalamka ku arkayaan nabad raadinaysaan adeer waxaas waa been nabad ma raadinaysid nabadna ma rabtid nabad adaa god ku riday muuso sajuudanow adaa god ku riday ka xaaxaad wiilashaada inay go'doon bay ku jiraan maanta go'doon nabadi lagu deeqeysadaatay midage dadkii kala lumay isdoondooniyo laab gacal baa la yidhahdaa laab gacal laabuhu waa kala qaalisan yihiin laabtu markay saa u ballaaran tahay oo wiil adeerkaaya oo aad jihaad ku wada jirteen oo aad soo wada dagaalanteen oo waxa weeye madaafiic geesaha lagaa garaacayay oo aad guul ka gaartay aad adeerkaa laabta saa u geliso waa ka qiimo badan tahay laab gelinta kale waa ka qiimo badan tahay iyo doorkiina kaada ba isku shubay oo ku hayo iyadoo surwaaladii iska qooyeen laandheeranimo wiilashani go'aan bay qaateen ilaahayna way tala saarteen artillery xataa waa lagu garaacay artillery qori ka weyn in Soomaaliya la umaleynay saasaa loogu rusheeyay waa ka nool yihiin waa ka qurux badan yihiin maantana cadawgoodii saas ay ugu weerarsan yihiin god bayna ku ogyihiin aad baan u bogaadinayaa guusha noocaas oo kale inaan helana waxa weeye waa mid aan ka sugayay dhulbahanta ma sha Allah sharaf iyo karaama idinlay waayahay sidaas la mida waxaan wararku ay nagu soo gaarayaan in ay odayaashii soo gaareen maanta magaalada Laascaano oo ka yimid koonfurta Soomaaliya ee nabadoonnada ahaa si qurux badan baa loo soo dhaweeyay magaaladii way soo arkeen burburka loo geystay way arkeen dhibaatada loo geystay way arkeen cidda gardaran iyo xaaladdu meesha ay marayso way arkeen waxa weeye si qurux badan oo waxa weeye information dhammaystiran waa la siiyay maantana iswareysina wali waa dhiman warbixin qurux badan bayna ka diyaarinayaan sidaan aaminsanahay odayaashii laftigooda waxa weeye lagu soo dhaweeyay Laascaano ee Soomaali weyn ka yimid muuse wuxuu yiri iyo qolyaha la jooga waxay ku dhaheen hanoo imaan miyaa marka nabadda yaa diidan way cadda odayash warbixin fiican bay qaadanayaan information fiican bay aruursanayaan caalamkana waa la tusaya waxa weeye odayash dhaqanka inay yimaadeen oo ay meesha ay waxa weeye information ka duubeen wax allaale waxay duubaanna waxa weeye international community-ga la horgeynaya cidda nabadda diiday evidence-gina waa la hayaa ha soo gudbino la yiri اللهم هل بلغت موسى ميل والبا وقق أذنسية
soomaali weyn waa ka go'doonsan yahay waxba kuma haysto caalam waa ka go'doonsan yahay sheegin ingiriiska xogaaga siin jiray waa ka go'doonsan yahay wuxuu yidhi xabad kuma hayo inay iscunaan wax yaray u jiraan wallaahi bilaahi tolla xaaladdu meel xun bay maraysa askarta wax la siiyaa lalaaya meelihii looga soo gurmad lahaa waa waxa weeye gurmad looma gaarsiin karo xalana waxay dhaheen waxaan laynaynaa maantaanu jihaad qaadaynaa bay dheheen yaa kaa hortaagan ciidamada kuwa haray muusow ma kuwaanba ciidan kale kuma harine boqolyahan ilkaha burbursan baa gana ciidamada ganaha dheer ilaahu naga qabo layskama celin kara ciidamada ganaha dheer muusow waa nugu soo dayn kuwaas ciidan kale kuma harin kale rag madafac lala dhacay oo artiri lala dhacay oo waxa weeye bkm lala dhacay oo bm lala dhacay oo aan waxba loo raadin oo dhahaya maanta waxaan qaadayaa dagaalku wadhig muxuu yahay god baad ku jidhaadaa nafti meel aad ka neefsataa laada meel aad ka neefsato baad laada odayga xale hadlaya hadal malaga galay weeye anigu waxaan maqlado waa dhaawac baa xataa lagu yiri kii xale hadlayay oo waxa weeye Soomaali lama hadlayay dhaawac weeyaaba lagu yiri waa yahay qodobka kasta ugu gudbaya jamaahiirta sidoo kale waxa la yiri fiidowga iga gaarsii nin hawiye ah oo koonfur ka soo diray gabay uu ku taageerayo jamaahiirta wuxuu leeyahay Soomaali weyn baad idinkaa badbaadiyay gob baad tihiin cid kale waxba nagama dhaxeeyaan idinkaa midigtayadii ah idinkaa Soomaalnimo sharafteedii ah bal yaan waradi ku daarin fiidiyowga wiilka hawiye soo diray ila daawada abwaanahay maxaa leedahay codsi baan u dirayaa daarood curadadiisii inay nagu colaadinin daahir calasow oo colaad ka simannahay dhammaan cusurka isaaq cirka meegaan iyo door ciilow ii qabo haddii cudud hayaan waa horay cuni lahaayeen aniguna inaan caawiyaa waa calaan jirin cadiguma yaaliya caddiin naga dhexeeye idinkaaba calankii ahaa cududii Soomaali warsi celiya daarooda baryaad caana dhamaysaan annagu hawiyaa baa saana le oo xaal baan naga bixinaa colaadda waa niga simannahay isaaq waa gabay aad iyo aad waxa weeye laabta oo ka hadlaya waa gabay qiimo badan gabay hawiye weeye laakiin waxa weeye gabay qiimo badan weeye sida xaqada marka laga hadlo nin qalbi uga hadlay wiilkaas sharaf iyo karaam uu leeyahay hadal aad baan ku salaameynaa jamaahiirtiina waa ka gaarsiiyay way ku soo salaamayaan dhamaantood sharaf iyo karaam aad leeyahay wiilka hawiye waxa la qaybsan karaa laakiin iidoor waxba lama qaybsan karo dhulbahantow hadalkaas meel ku qor wiilka dhul hawiye calanka Soomaaliyeed baan ka dhaxeeya nabad baan ka dhaxaysa waxa weeye maalintii wax ku gaaraan waxa weeye dhibaatoon mayo oo waxa weeye dhibaatada kula fiirsan mayo laakiin wiilka iidoor maalintii Soomaali geeskeeda wax ka dhacaan farta dhex ka qaniyo xuliya yes hore u socda haalo sho uu ku leeyahay marka Soomaali kala gooy mayso dhulbaanto idinkana neutral ka baatiin meesha dhexdhexaadka oo hay Soomaali baatiin nabadda iyo karaamada ka faa'iideysta oo ku fara adayga maantana chance ba haystaan Soomaali weyn oo dhan waa idin garab taagan tahay dhulbaanto dib ha u laaban hore u socda aadiyad qodobka halkaas lagu gudbiyaa waa yahay wiilashii reer biciidyahan ee fiidiyowgan iska soo duubay kabtan ayuubna halkaan kala hadlayaa general ayuubow hadda ay bilaabatay iyo maanta oo ugu dambeysay inay dhimasho iyo dhaawacba ku leeyihiin waad og tahay miidiyaha rabtay miidiyihiina reer biciidyahan waa kan hadda huunada u sheeg wixii aad u sheegi lahayd anigu waa ku wajahnay meesha muusana waxaan isugu tagaynaa kursigu ku fadhiyo ina lahaa waxa weeye laascaana ayaan tagaynaa maantana fiidiyowgan ayay iska soo duubeen dhubahata raali noqo iyar baarbiciyahan naga raagay saakana waa kan soo rucley hubkii raasamaalka ahaaye min raga iyo aarkuba way yaraha raagaane waxaraha iyo carruurtuna way rucleeyaane dhulbahanto raalli noqo saaka ribciyahan waa soo ruqaansada waxayba leeyihiin dhulbahantow naga raalahaada waa soo daahnay waa idin soo soconnaa dee waa goorma 7 cisho ka hor baad baxdeen see la idin galay ribciyaanow war meesha ka tagay maad harayaan oo ciidanka biiriya anigu arrin beenaan u qabay laakiin waxaa laygu yidhi daarusalaam oo ciidamada mataqaanaa gobolka mudug ka soo ruqaansada ay soo maraan wax ribciyahana oo soo maray ma jiraan arrinta hadday been noqoto waxa weeye alxamdulillah waan leeyahay hadday run tahay waxaan leeyahay tolkay waxaan leeyahay hiilkii iyo gobonnimadii aad waxa weeye aad ku dhawaaqdeen ka dhabeeya oo ka soo dhaqaaqa abaari aad baan idin salaamayaa sharaf iyo karaama idin leeyahay dagaalkana hadduu bilow yahay godkaasna ayaan rajaynayaa guuliyo gobonnimo asalaamu calaykum